السلام عليكم دمانتي مودين سلامي مقالكن oo ah mid wacyigelin ah oo aynu ugu talagalnay inaynu ka wacyigelino dadkeena Soomaaliyeed xanuunkan sida aadka ah ugu fiday dunida oo dhan kaasi oo meel walba laga hadlayo meel walbana gaaray waxa ka soo bilaabmay dhamaadkii 2019 dalka Shiinaha halkaas oo markii ugu horeysay lagu arkay fayraskan ama caabuqan sida ay sheegeen dhakhaatiirta caalamku waa mid ka soo fiday xayawaanka kaas oo u soo gudbay aadamaha waa xanuun si xawli ah u socda oo dhaqso u fidaya muddo yar gudaheed ayuu ku gaaray caalamka oo dhan darif ilaa darif waxa adkaatay xakamaynta xanuunkan maadaama uu si fudud u gudbayo ama loo kala qaadayo qofka qaba xanuunkan wuxuu ku gudbin karaa salaanta uu qofka salaamo ama meel uu taabtay amaba waxa uu ku gudbin karaa oo kale qufac ama hindhiso waxyaabaha noocaas oo ka soo baxaya fayraskaas oo afkiisa ka soo baxaya oo hawada soo raacaya qofkii hadii uu dhow yahayna si fudud uu ku qaadi karo ama ku gudbin karo waxa kale oo muhiim ah in qofku markasta gacmihiisa si fiican u dhaqo ama uu saabuun u isticmaalo ama waxyaabaha gacmaha lagu dhaqo taasi oo laga rabo inaad si fiican faraha ugu dhaqdo dusha iyo hoostaba labada dhinacba adiga oo daloolada gacmaha dhexdeedana si fiican u maydhaya taasi oo laga yaabo in fayrasku hadii uu gacantaada soo gaaro laabatooyinka iyo meelahaas oo kale aanad si fiican u dhaqin uu ku haro taasina ay sababi karto inaad si fudud ku qaado markaas waxa muhiim ah inaad farahaaga si fiican u dhaqdo adiga oo isticmaalaya saabuun ama shaambooyada gacmaha lagu dhaqo waxyaabaha kale ee leenooga digay waxa kamid ah inaad kala ilaaliso farahaaga iyo wajiga waayo wajiga sida indhaha sanka iyo afka waa meelaha ugu nugul ee xanuunku jirkaaga ka soo gali karo meelahaas oo laga yaabo hadii aad faraha ku soo taabatay kadibna wajigaaga taabatay inuu si fudud jirkaaga ku soo galo ama uu xanuunkiiba halka kaaga soo gudbo waxyaabahaas waxa kamid ah leenaga mamnuucaya ama leenooga digayo inaynu joojino ama aynu yarayno isku imaatinka bulshada iyo isdhexgalka bulshada hadii aanay ahayn wax daruuri ah oo ama aanad soo adeeganayn ama aanad wax dan aanad u baxayn inaad joojiso isku imaatinka iyo isdhexgalka bulshada hadii aanu Soomaalinahay kulli qodobkan waa mid inagu adag isdhexgalka bulshada ama isdhex socodka dadka taasi oo laga yaabo in dadka qaar kood ku adkaatay inay guriga joogaan ama ay fadhiyaan waqti badan oo sababi karta in ama asxaabtiisa booqdo ama meel kale oo dadku isugu yimaadaan tago marka dadkaas oo kale waxaan kula talin lahaa inay telefoonada isticmaalaan iyo gurigooda jooga internetka iska isticmaalaan telefoonada dadka ku xiriiriyaan taasi oo yareyn karta fiditaanka xanuunkan oo si xawliya dunida uga socda wadamada qaar uu soo gaaray sanadkan bilowgiisii ama bishan saddexaad ama bishan labaad ayaa hadda ka badan ama ka khasaaro badan wadankii uu ka bilaabmay ee China hadii aad u baxayso dukaameysi ama aad soo adeeganayso waxa muhiim ah inaad iska ilaaliso inaad meel kasta taabato haday bas tahay iyo hadii ay tahay meelaha la iskugu imanayo ama ay dadku ku kulmayaan sida bus stop-yada hana u kaxaysan caruurta meelaha la iskugu imanayo sida dukaamada muddada uu xanuunkani socdo dhakhaatiirta caafimaadku waxay ku talinayaan isla markasta oo aad guriga soo gasho inaad isla markaaba faraha dhaqato ama si fiican faraha u soo maydhato adigoo isticmaalaya saabuun taas waxay ka caawinaysaa hadii aad meelaha qaar ismoogaan soo taabatay in aanad u gudbinin dadkii kugula noolaa guriga ama cidii kale aad guriga la deganayd taas waxay yareyn kartaa faafitaanka adiga iyo bulshadaba xanuunkani qof kasta uu ku dhici karaa waxa soo sii daran dadka difaaca jirkooda hooseeyo ama uu liito iyo qofka xanuun hore sii lahaa xanuunkaasi oo sababi kara inuu difaaca jirka marka hore uu sii yareeyo waxa kale oo uu sii nugul oo ku dhici karaa ama uu dili karaa dadka waaweyn da'doodu weyn tahay yar iyo weyn oo ku dhici karaa laakiin si looga kala kabanayo ama looga soo kacayo xanuunka ay ku kala duwan yihiin qofka difaaca jirkiisa hooseeyo waxa laga yaabaa inuu xanuunkaasi dhibaato soo gaarsiiyo qofka difaaca jirkiisa uu fiican yahay waxa laga yaabaa inuu ka kaco xanuunkan waxa uu markiiba weeraraa neef mareenka waxaynu ka wadnaa intan dhuunta ilaa iyo samabada taasi oo uu dhaawac ugu weyn gaarsiiyo ilaa ay samabadu shaqada joojiyaan kadibna u sababi karto qofka inuu dhinto ama uu ku dhinto xanuunkan calaamadaha lagu garan karo xanuunkan sida ay dhakhtaradu noo sheegeen waxa kamid ah
xumadaasi oo markasta joogta ah, qufac, daal jirka ka muuqda ama daal badan oo jirka ka muuqda ama lafaha ah, cuno xanuun intan cunaha ama neef mareenka oo ku xanuuna, iyo neefta oo qofka dhibta ama ku adkaata. calaamadahan haddii aad isku aragto maaha markasta inuu kugu dhacay xanuunkii, oo waxyaabaha qaar shakiga uu ka mid yahay dadka sii dili kara ama sii dhaawici kara. shakiguna sida dhakhtaradu ay sheegeen wuxuu sii daciifiyaa difaaca jirka haddii uu kaa daciifana waxaa laga yaabaa inaad xanuunka u nuglaato ama aad iska difaaci kari weydo. marka intaa haddii aad calaamadahan isku aragto waxaa lagaa rabaa in aad joojiso inaad dadka la kulanto, isla markiiba aad xakamayso naftaada, aanad la xidhiidho meesha kuugu dhow adiga oo telefoon isticmaalaya. looma baahna inaad tagto dhakhtarka ama dhakhtarka guriga house artiska waxa loo yaqaano. nambarada halkan idinka muuqda waa dalka Jarmalka guud ahaan, meel kastood ka joogto waad wacan kartaa. haddii aad ka daawanayso muuqaalkan meel ka baxsan wadanka Jarmalka, isku day inaad raadiso nambarada u gaarka ah xanuunkan ee wadanka aad joogto ugu talagalay in lagala hadlo ama lagala soo xiriiro. haddii ay kugu adkaato luuqad ahaan inaad dhakhtarka ama qofka telefoonka qabtay aad u sharaxdo dhibaatada ku haysata ama waxaana uu iskaga shakiday xanuunkan, raadso qof kugu dhaamo luuqada oo kuu turjuma ama kuula xiriira meeshaas iyada ah. aad iskaga shakido xanuunkan markasta oo dhan 100% xanuunkii ayaa kugu dhacay, waayo waxaa jira xanuuno badan oo ay iskaga mid yihiin astaamaha sida hargabka oo kale. marka haddii aad shakido waxaa laga yaabaa in dhibaato kale kusii gaadho oo maskaxiyana ama aad tiraahdo xanuun weyn baa kugu dhacay, waxyaabo noocaasa. marka markasta niyadda ha gelin inuu xanuunkii yahay, laakiin isku day intaad ka fogaan karto bulshada dadkaagana aad badbaadin karto inaad samayso. arrinka kale farxadda lehi waxa weeye xanuunkani in laga soo kici karo ama laga bogsan karo, taasi oo ay muujiyeen wadamo badan oo sida Chinaha, Talyaaniga, Jarmalka, Faransiiska, wadamo badan oo uu dunidan ku dhacay in uu dhimatay iyo in kasoo kacday iyo in baaritaankoodii labada ay inta badan u qaybsan yihiin. marka waa laga kici karaa waana laga bogsan karaa, maaha mid 100% dadku ku dhimanayaan. laakiin waxyaabaha welwelka ku abuuraya dowladaha caalamka waxaa ka mid ah qaabkan uu u fidayo ee dhaqsaha ah ee uu meel walba ku gaarayo, dadkana sida fudud uu ugu kala gudbayo. taasi ayaa markasta welwelka keenaysa, sababaysana in magaalooyinka qaar la xidho ama albaabada loo laabo meheradaha inta ugu badan. magaalooyinka qaarna sida Talyaaniga, wadanka Talyaaniga oo kale magaalooyin badan baa la cidleeyay. Chinaha sidaynu hore u aragnay magaalooyin badan baa iyaguna sidoo kale albaabada loo laabay. dalka Jarmalkana gobolka Bayer waxaa la sheegay wararkii ugu dambeeyay ee maanta in gobolka gebi ahaanba la joojiyay isku socodkii. magaalooyin kale oo Jarmalka ka mid ah oo ay intooda badan yihiin tuulooyin ayaa iyagana mar hore lasii eelaamiyay ama la joojiyay isku socodkii dhammaan dadka iyo gaadiidkaba. su-aalaha isweydiinta leh waxa weeye haddii magaaladeeda isku socodka la joojiyo ama magaaladan ku noolahay la joojiyo sideeda nolosha noqonaysaa ama way ekaanaysaa. haddii aynu jawaabta isku dayno sida ay sheegaan warbaahintu, waxaa furnaan doona dukaanada cuntada, farmasiyada, kaalmaha shidaalka iyo meelaha kale ee muhiimka u ah nolosha. markaas ha ka welwelin in magaaladu hal mar istaagto. waxaa lagu ogolyahay inaad soo adeegato, laakiin codsi ayaa la qoran doonaa. codsigaas oo ah warqadaas oo ay dowladda kugu soo ogolaanayso sababta aad u baxayso, inaad kiniin ama dawo doonanayso ama inaad nolol maalmeedkaagii adeeg ah aad doonanayso.